بسم الله الرحمن الرحيم سيدا الله سعوتان waxaa ka dhacay boosaaso 5tii bisha May 2016 ka dhacdo muxuu sababtay dhimasho iyo dhaawac dhacdaas waxay ka dhacday xirada birmadka ee ciidanka booliska Puntland waxaan madaxweynaha dawladda Puntland uu xilsaaray guddi xubno ah kadib maanta ay tahay taariikhda 15kii bishii shanaad waxaa ka soo baxay go'aan waxaa soo baxay xeer madaxweyne oo lambarkiisu yahay 23 bisha May 2016 kuna saabsan xilka qaadis taliyaha ciidamada booliska iyo taliyaha ciidanka birmadka madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu arkay baahida loo qabo isbedel lagu sameeyo ciidanka booliska markuu tixgeliyay tala soo jeedintii guddiga uu xil saaray iyo dhibtii dhacday iyo wada shaqayn la'aanta ka dhex taagnayd taliyaha booliska Puntland iyo taliyaha birmadka Puntland wuxuu xeeriyay wuxuu madaxweynuhu xilka ka qaaday taliyaha ciidamada booliska sareeyo guuto Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf sidoo kale madaxweynuhu xilka ka qaaday taliyaha ciidanka birmadka gaashaan la sare Cismaan Xasan Cuuki xeerkani wuxuu dhaqan galayaa markii madaxweynuhu uu saxiixo uuna saxiixay sidoo kale waxaa ka soo baxay xeer madaxweyne 15 bishii shanaad 2016 kuna saabsan magacaabid taliye ku meel gaar ah ee ciidanka booliska Puntland madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu arkay aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa wuxuu xeeriyay waxaa sareeyo guuto Cabdulqaadir Shire Faarax Erig loo magacaabay taliyaha ku meel gaarka ah ee ciidanka booliska Puntland wuxuuna xeerkan dhaqan galiyaa markuu madaxweynuhu saxiixo uuna saxiixay waana mahadsantii